madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyo wasiirka xafiiska biyaha mudane Xasan Maxamed Xuseen ayaa xariga ka jaray wajiga labaad ee biyagelinta magaalada Jigjiga oo ay ka faa'iideysanayaan 365,625 qof. biyagelinta wajiga labaad ee magaalada Jigjiga oo ay bulshadu aad ugu baahneed ayay xukuumaddu ku bixisay lacag ka badan 1.4 bilyan oo bir. mashruucani ayaana 25% kor u qaaday heer daboolka biyaha caasimadda oo la gaarsiiyay 50%. in badan oo biyaha iyo laamido ma sha Allah baan leeyahay ma hadda iskale alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay madaxweynaha xaafadda nagu sameeyay ilaahay ma hadda iskale marka biyaha aad nagu waana biyo macaan ma sha Allah ilaa toga gaaran biyo ilaa toga gaaran qadaan xaafadii cabdi jiray ma hadda wax biyo ma aan heli jirin bariga hore xaafadaha aad shubanka ugu dhacay baan intay biyo nooymin إما كانوا ما شاء الله مرنا وحنا نقول بسنت بياس نوبل عمان ما شاء الله دولة عصب أدبن سلويننا كورلين بيلاين دوي مشروعنا بيجلنته لعقته كبحضي وحلقة قبتي قصنا حكومة وحنا هيرجلي شركة لجلي هاي ودن كشنها واللوجو مجعابه CCECC مشروعني ayaa leh 12 ceel oo 8 kamid ah hadda laga soo riixayo biyaha halka 3 kamid ahna keed ahaan loo diyaariyay si haddii ceel uu shaqada gabo aysan hakad uga iman biyihii ay bulshadu helaysay. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo munaasabada xarig jarka ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani uu wax weyn ka bedeli doono nolosha bulshada caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga sidoo kalena ay qorsheysan tahay bilowga wajiga saddexaad ee biyagelinta magaalada Jigjiga si loo daboolo dhammaan baahiyaha biyaha caasimadda. madaxweynaha ayaa sidoo oo kala sheegay in kasoo biyagelinada laga sameeyay magaalooyinka ay jiraan dhaqdhaqaaqyo horumarineed oo kor u qaadaya nolosha aasaasiga ah ee bulshada. ugu horeysa dhamaantiin waxaan leeyahay hambaliyo kamida dhalinta mashruucan weyn ee wax weyn ka bedelaya nolosha shacabkeena gaar ahaan shacabka magaalada caasimadda Jigjiga. isbedelka kadib horumarka deegaanku runtii ma aha mid ku kooban magaalooyin kooban 11 gobol meel walba iyo degmo walba waxa ka jira dhaqdhaqaaq horumar oo muuqda oo la qarin karin dhinac walba dhinaca jidadka dhinaca biyaha dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca shaqo abuurka iyo waxaas oo dhan waxa sal waa amniga dhinaca amnigaba runtii maalgelin ballaaran iyo shaqo ballaaran ma laga qabtaan oran karna xukuumaddu waxa ay aaminsan tahay in ay isu dhigmaan ama ay ka badan tahay 6 sano wixii la qabtay wixii deegaankeena laga qabtay 50 sano ama 60 sano u dambeysay runtii 6 sano oo ciidii ballaaran oo dhaqaale iyo xaalado kala guul dalku uu ku jiray waxaan markaa aaminsanahay muddada soo socota deegaankeenu inuu leeyahay rajo wanaagsan iyo weliba horumarku inuu kasii badan doono 2 sano ee soo socota ee ka dhiman gudixdeedka xukuumadda. mashruucan hadda halkan aan maanta ku joogno wuxuu magaalada gaarsiinayaa heer daboolka magaalada biyaha 50%. waxa laga yaabaa dadka qaarkii inay u macnaystaan taa macnaheedu waxa weeye 50% baa ooman ma aha magaalada soo caasimadda waxaan filayaa coverage-ka biyuhu inuu 150% uu yahay ilaa hadda 50 ilaa 60 inta u dhaxaysa. waxa macnaheedu yahay kalkaysi baa jiraya oo biyuhu maanta xaafad bay u soconayaan berina xaafad bay u soconayaan oo kala weyn ee dadka magaalada ku nool biyuhu way gaarayaan ka isniinta ay soo gaareen isniintu shubanaya ka kale waxay soo gaaraysaa talaado ay soo gaarayaan marka nidaam noocaas ah mashruucan feeska waxaan kaga baxaynaa arinta mashruuca saddexaad feeska wajiga saddexaad oo ilaa 15 bilyan lagu qiyaasay oo mashruuc hawshiisii haddaba la galay una baahan in maaragtay sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo mashruucaas aan sleenahay magaalada baahida kontanka ee hadda ka dhiman iyo baahida soo kordhaysa ilaa population-ka magaalada uu sii kordhayay 10 sano ama 20 sano soo socda mashruucaas aan sleenahay waxa qabtir doona baahida runtii biyaha dhinaca caasimadda magaalada Jigjiga waxa weeye waa muraayadeeni deegaanka Soomaali ahaan waa meeshii qofka deegaanka Soomaaliya ka hadlaya uu ku soo horeynayay qofka Ethiopia imanaya isagoo Jigjiga iman isagoo sawirka uu qaadanayo ugu horeeya waa magaalada Addis Ababa wuxuu ku arko wuxuu kaga sheekeynaya Ethiopia waa Addis Ababa wuxuu ku arko ma dhaafayo inta badan qofka Kenya tegaya wuxuu Kenya ka soo qaadanaya oo caasimadda marka uu tago
haddii caasimadaadu ay dunsan tahay ama ayna qurux badnayn adiga sharaftaada iyo muuqaalkaaguna sidaas oo kale uu kala dhinaanaya sidaa daraaddeed xukuumaddani waxay fahansan tahay arrintaa waxayna rabtaa caasimadda Jigjiga inay noqoto meel la tartanta dalka iyo geeska Afrika nasiib wanaag qaar ka mid ah himilooyinkaasi way hirgaleen bilow fiican baa jira laakiin markaad eegto magaaladu sida ay tahay weli farikabo qodna la oran kara waxay u baahan tahay dhan walba sidaa daraaddeed waxaan ku fikiraynaa in la sii xoojiyo dhaqaalaha la gelinayo magaalada ee ka imanaya miisaaniyadda federaalka oo ay xaq u leedahay waxa ka mid ah mashruuca biyaha hadda aan ka hadlay phase 3 magaalooyinka la midka iyada waxaa maalgeliyey federaalka waxaa ka mid ah miisaaniyadda deegaanka lagu hayo way waajib tahay miisaaniyad badan oo ka mid ah in magaalada lagu celiyo maadaama magaalada dadku ku nool ay ka wada yimaadeen 12 gobolba kana baahi badan yihiin waxaa ka mid ah in magaalada wixii ka soo baxay iyadana magaalada lagu celiyo siyaasaddaas xukuumaddu ay aaminsan tahay in la sii xoojiyo yaa naga go'an waana sii wadi doonaa insha Allah haddii la yidhi haddaan iskaashano maamulka magaalada deegaanka iyo federaalku waa ay u hagar baxaana magaaladani muddo gaaban oo aan maartay fogay waxay noqon doontaa magaalooyinka ugu quruxda badan ugu wanaagsan ugu nolosha fiican dalka inay noqon kartaan aaminsanahay himilo noocaas aan ku shaqaynaynaa dhanka horumarka marka isbedelada la sameeyey dadku way ka markhaati kacayaan meel walba laga soo bilaabo gobolka Daawa ilaa galbeedka City ilaa gobolka Doolo waxaan soo qaadanayaa meelaha fog baan soo qaadanayaa ilaa iyo muxuu ahaayay xuduudaha meelaha ah in dhaqdhaqaaq iyo nololeed oo wanaagsan uu jiro waa la qiraya waa run horumarku meel walba isku si uma gaadhayo meelo advantage meelaha ay ku yaalaan uu siinaya jira meelo khayraadka ay leeyihiin uu siinaya jira dhaqdhaqaaq marka waxa laga yaabaa wadooyinka laamiyada ee federaalku sameeyay inayna wada gaadhin meelaha qaarkood deegaanka oo asaas u ah laydku inayna wada gaadhin biyaha iyo antenoonka ayna wada gaadhin laakiin waxa xaqiiqo ah degmo walba oo deegaanka ka tirsan isbedelkii kadib in lagu xisaabtamay oo mashaariic la geeyay noocay doon ha noqotee meel walba marka arrinta inta badan la soo qaaday isu dheelitirka horumarka ah si ballaaran baa looga shaqeeyay 6 sano u dambeysay deegaanka matalaada siyaasadeed laga bilaabo iyo ka muuqashada golayaasha kala duwan ilaa iyo mashaariicda 6 sano u dambeysay si ballaaran baa wax looga qabtay laakiin lama oran karo hadda laftigeeda cadaalad baa jirto meel walba wixii ay xaq u lahayd baa haysataa ama si cilmiyeysan looma oran karo meel waliba wixii ay mudnayd baa heshay ama meel wax ka maqan yihiin ma jirto lama oran karo hase ahaatee 6 sano u dambeysay waxaa maray mudadoona in aad loogu dadaalay in wax laga qabto arrimahaas mashaariicda sanadka la qabtayna ee la fulin doono ee golaha baarlamaanka aan horgeyn doonana waxay ka turjumayaan iyaguna oo ka duulayaan dhinac horumarkii sii socday inuu sii socdo meelihii uu u soconay cabashooyinka shacabka ka yimaadeenna in wax lagu celiyo iyuu ka duulayaa marka runtii xukuumad shacabka dhagaysanaysa oo dadka aan caburinaynin oo doodaha siyaasadeed aan xoog ku xalinayn oo doodaha siyaasadeed fagaarow in yimaado ogol ayaa ka jirta maanta deegaanka nabadda aan haysanana taas asaas u ah nabadda aan haysan nabadgelyo darrada waxaa keena doodaha siyaasadda oo afka la qabto ama caburis baa keena doodaha siyaasaddu waa xalaal noocay doona ha noqdaan qaar gurracan baa jira qaar saxaa jira laakiin xalkoodu waxa weeye in miiska yimaadaan si xorriyada looga wada hadlo laysaga tanaasulo wax laga qabto shacabka caasimadda oo isbeddelkii ka hor qabay cabasho xooggan oo la xidhiidha dhanka biyaha ayay dowladdu ahmiyad siisay si tabashadaasi looga jawaabo waxaana heer daboolka magaalada Jigjiga oo isbeddelka ka hor ahaa 19% la gaadhsiiyey 50%.